shirkan jaraa'id oo maanta waxaan u qabanay hadalkii xali ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale anaga xamar baan u dhalanay urujin baan leenahay anagoon ogeyn wax gobolka Banaadir ka soconaya ma jirto alla wixii la sameeyay xamar ku saabsan waa ina anaga naga leesaa dhamaan bahweynta halkan isku timid oo mataan Cabdulle iyo Beesha Jarweyn waa mahadsanyiin shirkan jaraa'id oo maanta waxaan u qabanay hadalkii xali ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale wuxuu yiri maqaan aan xamar u sameeynaya xamar maqaankiisa oo Jarweyn iyo reer mataan ay ka maqan yihiin ma soconayo xamar waxa loo kala degan yahay nin ku dhashay iyo nin u dhashay iyo nin ku dhaqmay waa anaga xamar baan u dhalanay urujin baan leenahay anagoon ogeyn wax gobolka Banaadir ka soconaya ma jirto waxaan u sheegaynaa aan dawladdu u sheegaynaa gobolka Banaadir u sheegaynaa wax alla wixii la sameeyay xamar ku saabsan waa ina anaga naga leesaa anaga ina wax leega weydiyo waaye hadda aniga wax leega weydiinin wax jiraayo ma jirto wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dawladdu markaa maqasho waa nidaam ugu heshiyay oo dastuura oo ummadda raali ka wada tahay inaad tiraahid dastuurkii weynaayo ummaddu lagu dhaqi lahay ee dalka ugu maamulayna waa tuuray gobolka Banaadirna hebel gudoomiyaal in qaaya hebel duqmaalo in qaa madaalo ana caawada arintaas dil kale sax ku dhawaaq taas ku socma doonto ka joog adeerow ka joog adeer xasanow ka joog adeer xasanow ka joog ka joog adeer xasanow shala maanta waxaan ugu soo basay ikis Banaadir kala gooys waxa ku dhahay ikis Banaadir israacsi ee isku dhis hadda biri maxaysa muriyada maxaysa xamar qaybo kamid ah nima sheegay inay baarlamaanka soo fadhiistaan ay dhahan xamar anaka waa koonfur galbeed odayaal ka nahay aan ka soconaa matala Itoobiya maamulayso madaxweynaha koonfur galbeed oo yiraahdo Itoobiya ay maamulayso shalay adiga la gafisay adiga loo diiday waa og tahay dadka meesha fadhaan meesha baraw waxay ku leeyihiin xildhibaan golo deegaan meesha la yiraahdo hadda oo ceelasha biyaha dadka iska waa dadkan koonfur galbeed boqolkiiba 80 dadka meesha fadhaas kale hadda waxa la jawaab in yiraahdo am xaarana maamulayso xasan shaqii dawladiisa iyo Soomaaliya shaqul uma lahan ma haaso dalka mara waxaan kale u baaqa u dirayaa u dirayaa xildhibaanadii 20 xildhibaan ahay xildhibaan qaran ahay in ay ka soo laabtaan go'aanka qaldanay ee ku dhawaaqeen walaalayaal Itoobiya taaka dhulkeeda kamid ah arkana sameeyso laakiin anaka inaga haysta dad iyo dal naga haysta keenaga haysatay ayaa mar rabnay inaan ka jirin oo ka doon Kenya lagu diraa ni socomayso madaxweyne lafad garan asagana aad u cambaareynayo waxa uu ku dhaqmaayo waxa kale oo rabaa idan hadii ilaahay yiraahdo markaan odo Soomaaliyeed u hadlayo hadda wixii hadan odo Soomaaliyeed u hadlaya nidaamkan federaalka ee Soomaalida hadda ay qaadatay marka hore Itoobiya soo meelis